وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلامتين أرضي ملكستو جوكتان به وحال waxay saddex ugu horeysay maadada afka Soomaaliga fasalada sideedaad aynu ku soo tabino fogaan aragan ama si online ka casharadeennu taxanaha ahaa ee cutubkii ballaadhnaa ee maansooyinkeena ku dhex jirnay waxaanu maraynay qaybtii gabayada ayaynu dhowr gabay ka dhiganay oo waaweyn oo culus gabayada qaar ka mid ah iyo dhiyaro gabayada iyo geeraaradii ku jiray buugga iyo intii dambe heesihii ayaynu arsanaa waxaanu markaa bal maanta halkan ku soo gudbinayaa cashar ka mid ah casharadii noo harsanaa waa qaybtii geeraarka waxaana weeyey geeraarkii ku saabsanaa ammaan faras noogu jiray manhajkeena fasalka sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ayuu noogu jiraa intaynaan haddaba bilaabin geeraarkan iyo ujeedadiisa iyo waxa uu ka hadlayo iyo cidda tirisay iyo dulucda ugu qarsoon iyo waxa halkaa ku jira oo intaynaan horta u gelin waxaan ka yar horreysiin doonaa laba qodob oo muhiim ah ayaynu ka yar horreysiinay labada qodob waxa weeye kow inaynu bal ka jawaabi karno labada su-aalood oo xusuusinna inoo ah isla markaana waxyaabaha waaweyn ee objectiveska ama ujeedooyinka cashirka laga leeyahayna aasaas u ah su-aasha koowaad aynu ka jawaabina waxa weeye maxaa loo adeegsan jiray fardaha waayadii hore fardaha maxaa loo adeegsan jiray waayadii hore ardaygu marka uu cashar ka dhiganayo waxaa muhiim ah inuu yaqaano ama niyadda ku hayo horta farduhu maxay ammaantan ku mutaysteen ammaantan inta leeg ee la ammaani doono inoo soo socotaa waxyaabahay ku mutaysteen maxaa ka mid ah dee waxaa ka mid a kaalintay noloshii hore kaga jireen ee muggi weyle ay ka qaadan jireen iyo doorkay ku lahaayeen noloshii reer miyiga ahayd ee reer guraaga ama xoolo dhaqatada ahaa waxaynu ka dhex arki doonaa waxyaabaha loo adeegsan jiray fardaha shayga qiimihiisa waxaad ku garanaysaa shay walba qiimihiisu waxaad ku garanaysaa waxa loo adeegsadaad ku garanaysaa oo meelaha muhiim ah oo nolosha looga adeegsado ayuu leeyahay mawduuca shay kasta oo muhiim ah waxa kale nagu soo qaadan doonaa bal hadda qodobka labaad ee doonayna inaan isxasuusino inkastoo horena usoo aragteen cutubkii ugu horreeyay sheekooyinka iyo curashada aad kasoo aragteen midabada fardaha Soomaalida ugu badan mise midabada fardaha Soomaalida inta la isku waafaqsan yahay labadaa qodob baynu ka horreysiinayna waayahay waa midka koowaade su-aasha ugu horreysa waa maxay waxyaabaha loo adeegsan jiray maxaa ahaayeen baa laynu yidhi waxyaabaha loo adeegsan jiray haddaba fardaha Soomaalidu way fara badnaayeen laakiin se dhowrkan qodob ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha markaa loo adeegsan jiray fardaha waayadii hore waxaa ka mid ahaa fardaha waxyaabihii loo adeegsan jiray waayadii hore waxaa ka mid ahaa kow waa lagu dagaal geli jiray fardaha dagaalkaa loo adeegsan jiray waayadii hore marka dagaal la adeegsanayo ama se dagaal la gelayo
farduhu waxay ahaayeen shayga ugu badan ee loo adeegsado technical ama se gaadiid ahaan loogu adeegsado dagaalka ayay ahayd oo baabuur la raaco iyo wax hubka xambaara iyo wax culaabta culus lagu rarto iyo wax dheeraynaya oo dagaalkii kaalin ka gelaya oo aan farda ahayn berigii hore may jirin colka uu ka farda wanaagsan yahay ama kooxiba kooxda ciidanku ka farda fiican yahay uun baanu xagga dagaalka kaga awood badnaa waayadii hore waa sababta keentay inuu markaa farasku soomaalidii hore agtooda qaali ka ahaado qodobka labaad waa lagu xaragoon jirayba oo maanta halka ay ku jiraan baabuurta iyo waxyaabaha soo raaca mootooyinka diyaaradaha noocyada tareenada basaska waxaasi halkay maanta inoogu jiraan ee la iskugu faanayo ee qofku ka baabuur qurux badan yahay ama ka baabuur qaalisan yahay uu ka xarago wanaagsan yahay ama ummaday ka baabuur fiican tahay ama wadanku ka baabuur wanaagsan yahay uu ka qurux badan yahay ayaa berigii horena ninka uu ka faras fiican yahay uu ka xaraga badnaa markaasaa ninku markuu faraska ku taagan yahay duleed kaa marayo ama badal saa u socdo tamashlaynayo indhaha laga raaci jiray oo xaraga halkii ugu dambeysay ayuu markaasi ahaa farasku waxa kale oo loo adeegsan jiray waxaa lagu geli jiray socodka dheer iyo sahanka socodka dheer ee meel fog ama dhambaal la sida ha noqoto ama la booqanayo ha noqoto ama meel la soo eegayo ha noqoto amaba sahanka geediga ka horeeya ee dhulka fog loogu sahan tegayo meesha wixii loo baahnaa loo tegayo ha ahaadee kuu doonaba ha ahaadee labadaaba waa lagu geli jiray fardaha waa waxyaabaha ka dhigay faraska inuu bulshadii Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ahayd agtooda ama se reer guuraaga ahayd uu qaali ku noqdo qodobka saddexaad ee muhiimka afraad ee muhiimka ee Soomaalidii hore u adeegsan jirtay waxaa ka mid ah waxaa laga bixin jiray hablaha la kala guursanaya laga bixin jiray oo inanta marka yaradka xoolo loo soo sooco ee dhabartii agtiyo socotay intaas oo geela la bixiyo waxaa shardi u ahayd ama se ugu wanaagsanayd in farasna la socdo oo inanta aan faras laga bixin xoolo intii doonaba laga bixiyo inantaasi inan guurkeedaasi guur wanaagsan oo taariikhda gala ma ahan jirin fardaha markaa qiimo u yeeli jiray kala doonashadii iyo geed fadhiisigii hablaha qodobka ugu dambeeya waxa lagu maamuusi jiray dadka lama huraanka ah qofka muhiimka ah agtaada qiimo ku leh ama madax ah ama mijaku doonaba ha ahaadee marka la maamuusayo wax la isku galado oo gacanta la iska siiyo la iska guddoonsiyo waxa ugu mudnaa faras la isa siiyo ugu wanaagsan xoolaha kale oo dhani qiimo ma lahayn ninka neef geel la siiyo caawimoha laakiin san faras ninka ku siiya ninku sharfay oo ku maamuusay ayuu haayo hadiyada ugu qaalisan ee bariyay hore la bixin jiray fardahaas ka mid ah xoolaha inuu dhaqana marka laga hadlay iyo wixii lamida marka hadda waxyaabo kale loo adeegsan jiray meesha soo hoosgalayo dabaaldegyadii baa ka mid oo tartanadii lagu geli jiray baa ka mid oo dhaadashadii iyo faankii iyo goolaftankii baa ka mid oo waxaasoo dhan fardaha waa loo adeegsan jiray laakiin qodobada ugu muhiimsan ee suntan ee hoosta laga xariiqay ee arday walba la doonaya inuu bal maskaxda ku hayo shantaa qodob baa ugu muhiimsan soo dhaaf su-aashii labaad waxay ahayd midabadii fardaha bal qor baa lagu yidhi inta midab ee farduhu ahaayeen waayadii hore ama se ugu badnaaba dee midabada farduhu wuxuu ka mid yahay qaybta gamaanka la idhaah gamaanka markaa qaybtaa gamaanka ka ugu mudan ee ugu qaalisan ee magaca gamaana inta badan xambaaraya dusha ku sita ee ugu midabada wanaagsan leh waa fardaha markaa midabada waa looguna magac bixin jiray fardaha markaa midabada uu leeyahay looguna magac bixin jiray ee Soomaalida dhexdeeda caanka ka ahaa waxa lagu soo koobaa ama lagu soo ururiyaa 7 midab way ka badan yihiin oo qaarkood baa soo raaraaco maasooyinka ama geeraarada lagu arkaa laakiinse waxa ugu badnaa fardaha midabadooda uguna caansanaa taariikhda Soomaalidana inta badan suugaanta
tix iyo tiraabba ku jira toddobada midab waxay ahaayeen kow midabkaas ugu sida badan la sheegay inuu uguna qurux badnaa uguna xamarku waxa weeye waa faraska casuusta ah ee saynta iyo guudka madow faraskaasi waa faras casuusa gebigiisuba waa cilaan waa sidii loodeenii dhiinka loola jiray oo kale ayuu u dhadhowa waa midabkaa xinaha waa casuus laakiinse casuustaasi waxa u dheer isaga saynta oo dabada ah iyo guudka oo timaha luqunta dusheeda kaga yaalla ah labadaaba madow buu ku leeyahay iyo qoobabka meelo ka midab faraska noocaasa ama midabkaa yeesha ayaa waxaa la yidhaahdaa xamar baa la yidhaha xamar waxaa kaloo soo raaca ashkir faraskaasi waa faras ashkirow faraska ashirkiina isna waa casuus oo casuusta way iska midaysayn labadan laakiin isagu wuxuu kaga duwan yahay casuusta guudkii iyo sayntii dabada ahayd ee ka hore madoobaa ayaa isaga casuus wada ahoo faraskaasi waa faras wada casuusa gebigiisba waan arki doonaa sawiradooda midabka saddexaad waa qaajuhuna waa faraska wada cad ee xooshka ah meel madowna aan lahaynba meel madowba aan lahayn faraska wada cad ee wada xooshka gebigiisuba cadaanka ilaa xiribaha timaha indhaha kaga yaala wada cad kaas ayaa la yidhaahdaa qaaje waxaa jira kukaa ku yar lagu yar qaldo bulaaluhu isaguna waa faras cad laakiin cadaanka maxaa u dheer guudka saynta iyo gomodaha oo lugaha looga jeedo madow buu ku leeyahay kaasi waa faras cad laakiin sayntaa dabada iyo guudkaa sare ee timaha xaggaa uga rogan iyo lugaha gomodaha hoose intaasuu madow yahay isaguna bulaalaa la ydhaha bulaalaha nimanka suugayaaniintaa qaarkood cadaanka way u diidaana waxay dhahdaan maaha cadaane waa faras cawla oo intaana madow laakiinse sida buuggeenu qorayo caadi ahaanna loo badan yahay faraskaa bulaaluhu waa faraskaa cad guudka iyo saynta iyo gomudahana madowga leh bood waa ka afraade ka shanaade waa faras cawlaan ah dambari gebigiisuba waa bunni macnihii cadaanna uu ka yimide casuustiina kuma soo dhowaa waa cawlboorka cawlaankaasi faraska haddii uu yahayna waxaa la yidhaahdaa oo ilaa guudka iyo sayntaba isku wada mid yahay faraskaa bood baa la yidhahdaa midabkaasina fardaha uu ku yaryahay siday sheegaan waxa kaloo ka lixaad waxa weeye midabka lixaad waa caynab waa faras isaguna wada madow sida tukaha oo kale gebigiisuba waa madow sida tukaha tabta tukaha ayuu madow wada yahay oo sidaas tukuhu sugul madow yahay oo dhalaalaya faraskaana waxaa la yidhahdaa caynab waxaa kaloo jira muuqaalka toddobaad fardaha la yeesho midabkaasi oo la yidhaha baroorku waxa weeye waa faras isku jirjir ah wuxuu isugu jiraa faraskaasi waxau isugu jiraa midabo dhowr ah oo lagu qiyaaso ugu badnaan 4 midab 2 midab baa isku jiraa 3 midab baa isku jiri karaa ugu badnaan 4 midab kaas ayaa oo waxa mararka qaarkood lagu magacaabo lagu sheegaa 4 midab lagu sheegaa waana ka fardaha ugu wanaagsan macnaha fardaha baxdowga faraska aadka u dheereeya waxa la yiraahdaa baxdow faraska gaabiya orodkana magaan baa la yiraahdaa magaanka markaa lama jecla baxdowga lagu jecel yahay maadaama wixii dagaal lagu galayo ama sax lagu galayo ama tartan lagu galayo farasba faraska ka dheereeyo qiimo badan yahay fardaha ugu dheereeya hadaba baxdowga meedhani waxay ku jiraan qayb midabadaas ay ku badan yihiin ma wada aha oo sida la sheego ee buugteena ku qorqoran faraska dheereeya baroor ma aha baroor waa midabe laakiin fardaha baxdowga ah ee orodka dheereeya ayaa midabka inta badan lagu xaman jiray inay u badan yihiin bal hadaba taasi waa sheekay iyadoo muuqaalana midabadii
anu nimaadno faraskana arday waa faraska xasuusta lugaha iyo saynta dabada iyo guudkaana guudku waa timaha aga ku yaale intaana waa madow faraska maxaynu ku sheegnay xamar weey muuqaalkiisu waa ka faraska xamarku waa fardaha ugu quruxda badan ku jira waliba markuu sangaha yahay naxsan yahay sida kaalada ugu sawiran oo kale dhalaal buu yeeshay soo jiidasho gaar ah fardaha marka lagu quruxda badnaa looguna jeclaa waxa kamid ah xamarkaas kamid midabka labaad aanu ku soo aragnay ashkir buha midabka ashkirkuna waa ka waa asuus isaguna laakiin se sayntan dambe iyo guudka timaha xagga uga rogan iyo qoobabkii kala madoobaa intuba waa asuusunkan kaana waxa la yiraahdaa ashkir isaga laftiisuna waa fardaha xamarka ku xiga qurux ahaanta soo soco faraska qaajaha la yiraahdo kuwa faraska wada cad gebigiisuba meel madow aan lahayn saynta dambe timaha guudka oo lugahaasi gomnadaha iyo intaas oo dhan dul iyo hoosba faraska wada cad ayaa waxa la yiraahdaa qaaja la yiraahdo faraska afraad midabka afraad wuxuu ahaa bulaaluhu waa ka waa cadaan laakiin maxaa ku jira guudkaasi waa madow baa uga soo rogan adiga arkaya lugaha meelo kamidana madowgii uunbuu isna ku leeyahay oo adiga arkaya waliba waxa malaha madowga guudka sare qaarkii uu ka badan yahay oo bulaalo sababta loogu bixiyo waa busha madowga halka ka soo rogan ayaa la yiraahdaa bulaale qoobabkana waa ka madow inta saynta dambana way naga qarsoon tahay waa madow faraska madowga iyo cadaanka isugu jireen noocaasana bulaala la yiraahdo si soo faraska shanaad ama midabka shanaad waa ayno waa bahalka wada madow ee sugulka ee sida tukaha dul iyo hoos bay dhalaalaya kaas ayaa waxa la yiraahdaa ayno midabka inoo haray waa bood mayna ilhaad boodkuna waa ka dambariga ee cawlaanka aan cadaan ahayn asuustiina aan gaadhin kaana waxa la yiraahdaa bood midabada isku jirjira xasaan iyo madow iyo asuus iyo cadaan kana madow iyo cadaan iyo meelaha saanka saynta kan wada arkaya waa madow iyo cadaan iyo asuusta saynta midabada saddexda ama afar ba ayaa mararka qaar kood isku jirana kuwaana waxa la yiraahdaa baroorku markaa isagu waa ka isku jirjira midabadiisu boobahan qaybahan way yaraan karaan gebigiisu batixtiixba noqon karaan mayane faraska laba midab ama saddex midab oo kala gaar noqon karaan faraska qaybta hore iyo qaybta dambe laba midab ka noqon hadii faras aad aragto midab badan isku jirjira isagana midabkiisaasi waa baroor todobadii midabba haddaynu halkaa kusoo dhaafno labadii qodob aynu saa kaga jawaabno bal waxaad u kaaleedaa haddaba geeraarkeenan walhad ee ciwaankiisu ahaa ammaan faras walhad waa geeraarku wuxuu ka hadlayaa sidii ciwaanka inooga muuqatay faras uu ka hadlayaa ammaan faras weeye waxa tiriya allah u naxariistee raagowgaas warfaa oo gabyaal weyn oo Soomaaliyeed oo aan ahaa bulshada meel kasta Soomaaliyeed degan tahayna laga yaqaanay suugaanta Soomaalidana qayb libaax la ka qaatay oo aad ugu xeel dheer ah ayaa gabaygan tiriyay wuxuu noolaa qarnigii 19aad ayuu raagan noolaa sida taariikhda lagu hayo 1800kii bartamihiisii buu soo gaaray sida la sheego gabayadan iyo waxaan laga hayay inta taariikh laga hayay bee wardhigoodka ku soo gaaray dadka xilligaas uu tiriyay raagi geeraarkiisa waxa uu ku amaanayaa faraskiisa oo la oran jiray walhad magaca walhad fardo badan baa loo bixin jiray dheerayn buu magacu tilmaamayaa oo loogu bixin jiray faraskiisa markaa malaha aad u dheereyn jiray sida gabayga ka muuqata geeraar ka muuqata
ayaa wuxuu ku ammaanayaa raaga faraskiisaasi ku ammaananaya. shay markaad ammaanayso waxa shardi u ah inaad ku ammaanto waxyaabo wanaagsan, waxyaabaha wanaagsan ee qiimaha iyo sharafta iyo karaamada ku dheehan tahay, ama awood aad ku sheegayso, ama dheerayn, ama qurux, ama aduu wixii wanaaga yaa lagu ammaanaa. marka haddaba Soomaalidu ammaanta waxyaabaha ay ammaanto waxa ugu badnaa 3 qodob. 3 qodob ay ammaani jirtay Soomaalidu waxay ahaayeen gabadha oo ay Soomaalidu ku ammaani jirtay qurux, gaarinimo, ma garanaysaa karti Ilaahay u dhaliyay, joog iyo jamaal, waxa ay ku ammaani jirtay. waxa kale Soomaalidu ammaani jirtay geela, oo Soomaalidu geelana caana badnida iyo adkaysiga iyo qiimaha uu Soomaalida agtooda ku leeyahay ayay ku ammaani jirtay. waxa kale ay Soomaalidu ammaani jirtay fardaha, gamaanka, isaguna waa gamaane garo. gamaan waa geela iyo gabdhaha iyo gamaanka, 3daa ayay ku ammaani jireen. geeraar ama gabay ama hees wixii ay xoola ka ammaanayaan 3daas qaadan jireen. 3daba waa jiye garo. ragga qaar ba waxay yiraahdaan Soomaalida ammaantooduba waxay dul dhigeen 3daa ji, 3G-ga waa gabdhaha, geela iyo gamaanka. geeraar baan ku arki doonaa maahir la yiraahdo oo inoo soo socda. gamaankuna waa kan maanta aynu dhiganayno oo raagowgaas ku ammaanaya faraskiisa. gabdhaha waxaad ugu tegi doontaa iyadoo la ammaanayo secondary-ga form 1 form 2 form 3 form 4 ammaanta gabdhaha. waayahay haddaba bal faraska u kaalay. faras marka la ammaanayo waxa lagu ammaanayaa dee faras wanaagii wixii uu fardu ku wanaagsan ku kala wanaagsanayeen. fardu maxay ku kala wanaagsanayeen? farduhu maadaama dagaal wixii lagu gelayo dee horta dheerayn iyo orod badni meesha soo dhig kow. waxyaabaha kale ee farduhu kala fiicnaaya waa maxay? waa nabi imika midabka ka sheekeynayni dee midabkiisa iyo quruxdiisina waa lagu ammaano. farduhu waxyaabaha kale maadaama dagaal lagu gelayo alwadayg iyo fardii kala dagaalyahansanaantii iyo gadoodkii iyo caradii iyo tiina waa lagu ammaanaya. maadaama fardii lagu tartamayo ama lagu baxsanayo ama wax lagu eriyanayo cagfudeydkii iyo dhaqsihii baa lagu ammaanaya. raaga isagoo dhinacyada faraha badan la ka eegaya faraskiisa ayuu ka ammaanay. dhowr meelood buu ka joogsaday. kow waxyaabaha raaga geeraarkiisa ku ammaanaya faraskiisa waxa ka mid ah dheeraynta faraska. faraskiisu sida uu dheereeyo ee uu orodkiisu halkii u gaarsiisan yahay iyo xuftiisu ku ammaanaya. 2 dhirifka ama gidoodka cadhada weeyaane faraskiisu siduu cadhag ku yahay ee aanu waxba u qaadan karneen caastimada loola iman karin hoosta laga soo gelgeli karin ayuu ku ammaanaya. wuxuu kaloo ku ammaanayaa dhaqsaha iyo cagfudeydkiisa. dhaqsaha waa la kala dhaqso badan yahay. farduhu way kala dhaqso badan yahay, xooluhu way kala dhaqso badan yahay, dugaaggu kala dhaqso badan yahay, dadku kala dhaqso badan yahay. faraskiisu sida uu cagfudud yahay ee uu dhaqso badan yahay ku ammaanaya. wuxuu kaloo ku ammaanayaa midabkiisa iyo quruxdiisa. midabka uu leeyahay iyo quruxda iyo soo jiidashada uu leeyahay buu ku ammaanayaa faraskiisa. raaga waxa kaloo ku ammaanayaa feejignaanta iyo firfircoonida uu faraskiisu leeyahay. faraskaygani waa wax foojigan oo aan dhinacnaba loo dagi karin oo dagnaan lagu heli karin ayuu leeyahay. feejignaanta waxaa yidhahdaa qofka dhiifoon ama wixii dhiifoon ee had iyo jeer dhinacna ila ka horday laga soo jeeday ee digtoon ayaa la dhahaa feejignaan. firfircoonaduna waa weeye waa qayb feejignaanta ka mida. waa degdegii gabaygii geeraarkiisa wuxuu markaa gamaankii faraskiisa ku ammaanaya inuu foojigan yahay aadna u firfircoon yahay. waxa kaloo geeraarka ku ammaanaya garaadkiisa sareeya faraska. baladeed waxyaabaha qaar buu aad arkaysaa inuu xadkii loogu talagalay ka saarayo oo waa neef caqli fara badan ma laha. haddana raaga wuxuu gabi baalkiisa gaadhsiinaya
heer uu dadka qaarba ka garasho badan yahay oo iska daa wax jooge xataa waxyaabo soo socda uu garan karo ayuu sheegaya. wuxuu kaloo ku ammaanayaa kalsoonida uu ku qabo iyo raallinimadiisa, kalsoonida uu ku qabo iyo sida uu isugu hadlayo. kow, raallinimadiisa iyo sida uu ugu dhegan nugul yahay ee uu wax wal oo uga baahdo oo faraskiisa uga helayo u ogol yahay u yeelayo, waxyaabahaas ku ammaanaya. qodob kale oo aan ka tegay baa jiro, wuxuu kaloo ku ammaanaya wax aan xoolo lahayn oo bini'aadamka ilaahay siiyo karaamada iyo welinimadiisa ayuu faraska ku ammaanaya. waan arki doonaa ayuu faraskiisa ku ammaanaya isagoo raaga waxyaabahaas faraha badan la haddaba faraskiisa marbas wax soo qaadanaya oo barbar dhigaya oo leh warba halkayga waan ka yaabay ma sidan iyo ma sidan iyo ma sidana ayuu geeraarkii tiriyo. wuxuu yidhi waa dul marayaa xiisadeena laba xiisadood baynu u kala qaybsan doonaa, qayb intaa hordhaca aan ka dhigi, qaybna inta dambe geeraarka iyo macnihiisa iyo wixii eraya ku jira waan dul marayaa. haddaba wuxuu yidhi geeraar waa nin wanaajiyo, nin waraar uu kaga oodmiyo, nin sidayda warkiisa iyo waadigiisa yaqaanee wal hadow faraskaygan weer yaroon ku ammaanay wuuga maan ka bilaabo. gemaan waa kala waareh wee hadow orodkiisu waraf dayn laga xooriyo, taarka la ysku warqaadiyo, mawaayeenka shokaantoo wanaag loogu qabtaa. weyraxow camalkiisuna waraabkaan u kaxeeyo anigoo wada mooye isagoon weli laacin, ninkii haanta ka waabshiye wilayskaa garab joogaba wirwiruu ku dilaaye wiyil qoodha miya. weedhaanshow dhaqsihiisuna ma wareega libaaxoo intuu dheefka websiiyey mid haddii la yidhaahdo wankalaadi uboodkaa dadka waabinaya. cajiib. welisow midabkiisuna cirka oo wadhanaayo wahabkii laga qaadiyo mawaagoo sagliya. meel waylaaqtan col joogo wadnahaan ku kabaaye wiilu eebba ku siiyiyo ma walaalkay ruma. yaa salaam. meel waylaaqtan col joogo halkaa ya-baan ka tegay. meel waylaaqtan col joogo wadnahaan ku kabaaye wiilu eebba ku siiyiyo ma walaalkay ruma. waran waaxyaha gooyiyo waabay qaarka madowliyo riddo soo warwaraysiyo wanjaafkeeda rasaastuu iweydaarinayaaye ma wadaad xigtadaayoo wanaaggii arbacuunka weligiisba yaqiinoo wan intaad u qashay waduxaaga qur-aanka iyo walleyl ku akhriya. wuxuu yidhi haddaan heego ku weeran ka wareeji idhaahdo wajaquu aan badaayo madaxuu kor u waabinoo indhuhuu ka wigsiinne wijici waayicu raafiyo ma wax sheeg sixira. wijici waayicu raafiyo ma wax sheeg sixira. waadigaan ku shakaalo ma weydaaran yaqaanee ma wanaagsan gabdheedoo waali kuu gogoshaayoo wareegaysa dushaadoo dadka oo wada seexday haddaan ooda ka weecshana wacdigaad ku lahayd iyo waanadii aqbashaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khayr baan idiin rajaynayaa. meel kastood joogtaan allah idinku nabadgeliyo. waxaan idin leeyahay rabadaan kariim.